مسيدين وكذا يا ما دافعني مراقبة مسيدين مدحوينه خطبتي وجهديي أنو تريد أنا حلي فرحت بانو سيحن كذي وين مدحوينه dareenka shacabka Gibili ayaa maanta ahaa sidan waxaana ay ka mideysnaayeen taageerada madaxweynahooga khudbadii ka jeediyay shirkii wada hadallada dawladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee goobjoogka ka ahaayeen madaxda Geeska Afrika isla markaasina halkaas weynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muse Biixi Cabdi walkaas ku soo bandhigay khudbad garnaqsi ah oo la xidhiidha waqtigii waayihii iyo maalmihii madooba ee ka soo bilaabantay goor isku taagayagaasaan mutaabacsanay madaxweynaha iyagaana saan mutaabacsanay waanu ooynay waanu xambaaranay waanu luqanay Soomaaliyeena waxaan leenahay gobonimada qaato qarankan waa tago waa talaabsade iska sii daay shaarka jiidanaysan madaha oraha iyo erayada wadaniyadu ay ku xidhan tahay shacabka reer Gibli maanta ka soo baxaya waa mid ay ku cabirayaan dareenka maanta iyo soo bandhigida madaxweynahoogu uu beesha caalamka u soo bandhigay madax banaanida jiritaanka iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliland halkay ka soo bilaabantay iyo halkay iyo maqaamka maanta ay gaadhay horumarka nabadda barwaaqada iyo kala dambeynta maanta beesha caalamka u muujiyay Soomaaliland ay miis kasta ku soo bandhigi karto garnaqsigeeda madaxweyne runtii waxa weeyaan haysta awoodda oo waxa weeyaan ku soo baxay codkayga baarlamaan haysta waxa weeyaan codkayga iyo sidoo kale waxa weeyaan golayaal kale oo namatala runtii madaxweynaha waxaan leenahay hambalyo garnaqsi fiican ayaad sameysay si fiican ayaad u hadashay khudbadda shalay toole u jeediyay tii daweynaysa baa nabarkii nagu yaallay shalay toole aan damqanayay ee dushun laga dhaydhayay haddii halkaa la mari waayo madaxweynuhu mariyeyna la mari waayana oo caalamkan iska indhatiraya mari waayaanna waxba ma soconayaan maanta nin looga warwarayo maaha garnaqsigiisa oo beesha caalamka u garnaqsanayana waan ku taabaxsanahay mid kale ma ku darayaa shacbiga reer Soomaaliland hadaan nahay garnaqsiga muusoo wada waa mid aan la qabno waxaan la qabnaa shacbiga Suudaan waxay heleen ayaan anaguna xaq u leenahay inaan helno hadaan shacbiga reer Soomaaliland nahay waxaan taageerayaa khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jeediyay Geeska Afrika wala ku diyaarsan yahay Soomaaliland oo dhan baa ku diyaara iyo hooba madaxweynuhu khudbadii uu jeediyay waanu tiriid qono xalay farxad baanu seexan kari weyna madaxweyne waad mahadsantahay cadawaagu ha jabo oo martidaada saro matidaada koriya yahanay ku fani rahaagiyoro fadhiyay dalkaagana daafaco dawladada ka yeel madaxweynaha iyaga sharafta leh oo aanu aad ugu diirsanay kelmadaha uu ku hadlayay 90% qiirana gelisay waxaanu leenahay jiro joog waa muqaddis Soomaaliland waxaan gorgortan gari karin Soomaaliland oo dhan maanta Galbeedka taagay waxa shirkaasi ka soo baxaya haddii wax noo cunto ma noqon waayo midna madaxweyne oo kugu raacsanahay ka soo bax waxaasi wax noo qaranka Soomaaliland u dharaali galiyo guul haday noo tahayna waan ku garab joognaa maanta waxaanu 100% ku qarsoonahay midna madaxweyne masiirka ku horyaala maanta waa maalintii qorigaad ka qaadatay isagoo qalinana maanta ku horyaala kaba qaran inagoo ah Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya inaynu shalay ku wada hadalnay fagaara caalamku ay isugu yimaadeen oo reegeeni ka dhiibnay madaxweynaha sidii adkeyd ee uu mowqifka halkeenu ka taaganahay oo tusay beeshii caalamka iyo midowgii iyo dadkii isugu yimiday waan ku hambalyeynaa halkeenu ka taaganahay madaxweynaheenu maanta Soomaaliya inaynu ku biirno waa madaxweynaheena waynu ku garab taaganahay waynu ku soo dhaweynanaa garnaqsigii sharafta lahaa ee uu ku garnaqsaday shalay wada hadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland loogu qabtay magaalada Djibouti ee ahaa hadal garnaqsiya oo aan waxba reebin oo ka hadlaya dhabtii qadiyadda Soomaaliland halka ay soo martay madaxweyne Muse Biixi oo maanta sharaf weyn qaam weyn oo culus oo hirgalaya oo ummadda Soomaaliland ku faraxday madaxweyne waxa tahay geesi qaran halkeygii baad dhigtay way la xaajay telefishinka qaranka Gibili